Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in askarteedu joogteen koox ka tirsan qaramada midoobay oo gaari ku dhex marayay waqooyiga dalkaas oo ciidamadu kula dagaalamayeen xoogga Tigreega. Afayeen u hadlay Dowladda Itoobiya ayaa shaqaalaha qaramada midoobay ku eedeeyay in ay soo galeen aag aan loogu talagalin. Wuxuu ku eedeeyay in ay si toos u dhex mareen laba bar control inta aan la xirin. Qaramada midoobay ayaan ilaa iyo haatan wax jawaab ka bixin dhacdadaas lagu dilay shaqaalaheeda. Kooxda ayaa waxaa lagu waramayaa in ay isku dayayeen inay gaaraan xero ay ku jiraan qaxooti Tigre ah. Waxaa jira cabsi laga qabo in qaar ka mid ah ku dhex go'doonsan yihiin dagaalada u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa TPLF. waxaana soo baxaya warar sheegaya in qaxootiga lagu qasbay in ay fuulaan isla markaana dib ugu noqdaan dalkooda Itoobiya.